nidaamkii Soomaaliland ka mid noqdaan oo khaatuma ka mid tahay dadkaasi waxay doonayaan inay jecel yihiin Soomaaliland ka mid noqdaan si loo helo Soomaaliland la wada leeyahay iyadoo laga wada tashanayo in dastuurkuna uu noqdo wax la furo si loo helo dhammaan dadka danaynaya inay Soomaaliland ka mid noqdaan waxaanu kala hadalnay dhibaatada badan ee shacbigu maanta ku jiro oo sicir bararku ka mid yahay aan u tirinayno xukuumadeedii kulmiyuuma haddana waddanka haystee in laga dhaxlay sicir barar xun oo nolosha dadka ciriiri geliyey in wax laga qabto waxaan ku soo go'aanadayaa in doorka xisbiga wadani uu yahay sida sharcigu farayo door xisbi mucaarida oo adag insha Allah waxaan u soo jeedinay inay xukuumaddu u dul qaadato mucaaradada iyo saxaafadda labadaba waanu ka hadalnay xariga saxafiyiinta xidhan waxyaabahaasi waxay hayeen waxyaabihii aanu kala hadalnay ama u soo jeedinay taageerayaashageedana hawadaan u marinayna runtii kulanku intaasuma ku koobnaa waxaanu gaar u leenahayna iyo mucaaradadana gaar baan uga shaqaynaynaa wixii qaranku wada leeyahayna taladiisa qayb baynu ka nahay Saciid Aadan Jaamac Home Cable TV Hargeysa wasiirkii hore xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa ka jawaabay ujeedka uu daarnaa kulan ay magaalada Hargeysa kula yeesheen wasiiradii xukuumadii hore warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyeena Jaxaadan Cunaaye gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax oo waraysi gaar ah xafiiskiisa ku siiyay Home Cable TV ayaa waxa uu markii ugu horeysay uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ujeedada laga leeyahay in la furo dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo qayb ka ahaa shir ay wada yeesheen xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo kaasoo ka dhacay magaalada Caynabo halkaasina lagu kala saxeexday gudoomiyaha Baasha waxa uu xusay oo farta uu ku fiiqay qaar kamid ah qodobada u baahan in dastuurka loo furo dastuurka furidiisu sool qoriyo ma baahan waxa uu furan Soomaaliland dhubaa u baahan qodobada u baahan waxa weeye saama qaybsiga golaha wakiilada waa 280 kiina kuma wada filla cabasho badan baana ka timi waagi dhaweeda waada weydo beelaha dhexe waxay leeyihiin 56 afarta darafyaduna afarta beelooda kale waxay 26 waxa loo baahan yahay in tiradii darafyada baarlamaanka la kordhiyo cid hadda la leeyahay halka laga soo qaado ama Hargeysa haysata ama Burca haystaan ma jiro awdal iyo sool inay cabanayaan waa tii gudida u diray gudiyadii waxay soo celiyeen inaan sidii hore doorashada lagu keli karay gudi baa loo madaxweynaha loo diray madaxweynuhuna xisbiyadiina waxay iskaga soo riixeen dawladda cusub marka qodobadaasi waa u baahan yihiin in wax laga taabso waxa u baahan kordhintan madaxweynaha maalin walba loo kordhinayo oo guurtida ay kordhinayso iyada laftigeeda in wax laga bedelo waa u baahan yihiin marka qodobo badan oo hadda aan 1 iyo 2 hadda oranay ayaa jira marka dastuurku in la furo wax dhibaato ah oo ku jira laakiin way tala midaysan lagu furo Baasha Maxamed Faarax ayaa waxa uu gadigay qaar kamid ah shaqaalaha dawladda oo maalmihii ugu dambeeyay uu xusay inay eedeynayaan golaha wakiilada in aanay eedeyn karin golaha wakiilada ee Soomaaliland niman shaqaale dawladda ah oo golaha wax ka sheegaya nin shaqaalaha iyo nin meel xafiis fadhiya oo golaha wakiilada aan ka dulqaadanayna inuu wax ka sheego ma jirto waxa ka mid ah nin karyaqaanka guud ku xigeenka karyaqaanka guud oo shalay ka hadlayay golaha wakiilada yiri wasiiriye ka hadlayay waxa weeye nidaamka u dulqaadan karin weyn nin dawladda u shaqeeya golaha dastuuriga waxba ka basheego waxyaabo aanu kala wada hadlanayna waa jirta madaxweynahana waxaanu ka codsananaa oo weydiinana waxa weeye waa hay'adda dastuuriga golaha wakiilada shacabka waxay doonayaan waa laga sheegi karaa iyagoo awoodooda qori waxa weeye inay TV-ga iyo wax ka sheegaan jaraa'idka laakiin in shaqaale dawladeeda inuu golaha wakiilada wax ka sheego ka dulqaadan mayno waanu ka soo madaxweynahana waanu u gudbinaynaa hanti dhowraha shalay ka hadlayay maalin hore waxa ka hadlayay ku xigeenka karyaqaanka guud marka shaqaale dawladeed inay golaha wakiilada inay wax ka sheegaan waxyo aan u dulqaadan maaha waxaan kula shaqeynaa dawladana waa sharciga Baasha Maxamed Faarax waxa uu sidoo kale
uu baaq nabadeed u diray dad walaal ah oo dirir ugu dhaxaysa deegaano ka tirsan gobolka Sool isagoo marka horena tacsoo diray guud ahaanba eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii dagaalkaasi ku waxyeeloobay waxaa dagaalamaya dad walaalaa dirisa ayaa waxay ku dagaalamayaan gobolka Sool iyo Nugaal iyo Mudug dad badan baana ku dhintay dagaalkuna wuxuu socday muddo badan oo dhow iyo 10 sano ah dagaal loo baahan yahay maaha wax la isku hayo oo weyn oo hadda la sheego oo la yiraahdo waxaas la isku hayeen ma jiraan daaqsin iyo baa la isku hayaa dad inta leeyahay inuu ku dhinto macna la'aan looma baahna waxaan ugu baaqnaa labada beelood dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan in ciidamada la kala qaado in gacan ka hadalka la joojiyo afka laga wada hadlo culimada salaadiinta isimada iyo dadkii kale wax karadka ah inay si dhaqsa ugu gurmadaan si dagaalka loo soo afjari lahaa muddo badan buu socday waxaan la tacsiyo diray dadkii dhintay labada dhinacba waxaan ilaahay uga barayaa dadkii ku dhaawacmay labada dhinacba in ilaahay u sahlo dawladaha dariska kiilka shanaad waxa weeye waa dhulka badankiisa waxa iyaga jooga inay ciidamo kala dhexdhigaan iyaguna ay nabadda ka qayb qaataan dadka dariska inay u gurmadaan mar la soo afjaro arrintan dagaalkan soo noqnoqonaya bilaa macnaha dadku ku dhimanaya dad badan baa dhintay maxamed kuraase Home Cable TV magaalada Hargeysa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland ayaa shaaciyay fursado shaqo oo ku saabsan diiwaangelinta shaqaalaha dawladda warbixin amurtaas ku saabsan waxa noo soo diray waliye Muxtaar Mursal Xiin gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaake Maxamed Geelle ayaa shaaciyay 22 kaalmood oo shaqo isla markaasina ay dhalinyarada dalku u tartami doonaan Sharmaake Maxamed Geelle waxa uu carabka ku dhuftay qaar kamid ah shuruudaha looga baahan yahay dadka loo qaadan doono shaqadani kan maanta hay'adda shaqaalaha mas'uuliyiintooda ugu sareeya iyo qolooyinka wada shaqeynta leeyihiin baalkan ku yeedhan waxay tahay shaacinta kaalimo shaqo oo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dhalinyaradiisu ay u tartami doonaan kaalmaha shaqo tiradoodu gaadhayso 22 qof baanu doonaynaa inay dhalinyarada kala duwan ee qaranku shaqada soo xareystaan si ay u noqoto taxaan daah rogan furan oo dhalinyarada kala duwan ee qaranku ay ka qayb qaataan dadaalka wada shaqeynta dhawaan bilaami doonta sidaad la socotaan waxa dhawaan bilaamaysa madax taabashada qaranka oo shaqaalaha kala duwan ee dawladda la soo ogaan doono tiradooda rasmiga ah si qiyaas iyo qorshaha hadii looga dhigo wixii caagle iyo qalad ku jireen looga saaro si taas u dhacdo hay'adda shaqaalaha dawladda iyo shirkadaha wada shaqeeyaan oo kamid yihiin Extra Inside iyo SSG waxay isla qaateen in loo baahan yahay tiro dhalinyarada shaqaalaha hay'adda joogta tiro ka badan inay la shaqeeyaan si baahida ay dhammaan gobolada iyo goobaha kala duwan ay u gaadho hadaba hay'addu iyadoo arrinta ka duuleysa waxaanu soo helay inaan u baahanay 22 qof oo arrinta naga kaaliya nagana caawiya madax taabashada kala duwan ee qaranka aanu ka bilaabayno sidaa darteed dhalinyarada kala duwan ee qaranka waxaanu soo bandhigaynaa inay kaalimaha shaqo soo xareystaan berito oo salaasa bay qabashada siifiyadu bilaami doontaa shuruudaha waxa ugu muhiimsan qofku inuu noqdo shaqaaladooyno inuu ahaan shaqaale dawladeed qodobka labaadna inuu yahay jaamacad ka soo qalinjibay qof walba oo jaamacad ka soo baxay wuxuu u bannaan inuu soo xariisto shaqadan si uu uga qayb qaadan karo imtixaanada kala duwan ee lagu soo baxayo muddada kontraagaasi soconayo inta guuleysata baanu ka wada sheekaysan doonaa oo laga saxiixi doonaa muddada qaranka hawshiisa qaran ee la qabanayo ay nagala shaqeyn doonaan hadii la yiraahdo berito oo salaasaabay furmaysaa waxay xirmi doontaa qabashada siifiyadu sabtida 12 duhurnimo sabtida 12 duhurnimo ay joogsan doontaa qabashada siifiyadaasi axad waxay noqon doontaa kala hufida maalinta isniintaana oo isniintaadana waxay noqon doontaa maalinta imtixaamada loo fariisanayo hadii la yiraahdo calaf wacan nasiib wanaagsan iyo mar walba kaalmihii gacanteena ku soo dhaco sida cadaaladda aynu u baahino Muxtaar Mursal Xiin Home Cable TV Hargeysa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu sagootinayay ciyaartooygii ka qayb gashay koobkii dawlad goboleedyada ee Muqdisho lagu qabtay warbixin amurtaas ku saabsan waxa noo soo diray wariye Cabdiraxiin Daacad sagootin kaftan ciyaaraha dhaqanka iyo suugaan kala duwan ayaa xalay Muqdisho looga sagootiyay kooxdii Jubbaland ee noqotay horyaalka sanadkaani ee tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya kaasi oo ay martigelisay sanadkaani magaalada Muqdisho kooxaha Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa iyana dhiska qayb ka ahaa iyo macasalaameynta oo xalay madasha ku sugnaa
duqa muqdisho ayaa gogashaani sagootinta dhigay waxaana joogay wasiirada amniga warfaafinta mas-uuliyiin kala duwan iyo xiiseeyaasha ciyaaraha tartanka kubadda cagta Soomaaliya. macalinka kooxda koobkani hanatay ayaa kooxaha ugu faanay in Jubbaland xulka ka socda lagu yaqaano hanashada tartamadani isagoona sheegay in ay ku guuleysteen koobkani dhowr mar isla markaana ay ka soo dhaxbaxeen iyadoo lagu ciyaarayo 18 gobol waqtigii bariisamaadkii. maamul goboleedyada dhammaan waxaan u sheegayaa maanta waa 6 gobol waagii horena waxay ahaayeen 16 gobol 16kaas gobol ayaan maalin kasta ka soo dhexbixi jirnay sidaas ayaa waxaan ku haananay inaan qaadano 8 sano oo bariisamaadkiia 8 sano weligeen waxaan rabaa inaan idiin sheego annaka semifinal weligeen kama naarin. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa bogaadiyay kooxaha kala duwan oo ka qayb galay tartankani isagoona kooxda Jubbaland ugu hambalyeeyay inay noqoto horyaalka sanadkani. bulshada ayuu soo kale Taabid Cabdi Maxamed wuxuu ugu baaqay in la taageero isla markaana la dhiirigeliyo isboortiga Soomaaliya. marti sharafta halkan timid gaar ahaan kooxaha in aan iraahdo safar salaama waxaad naga gaarsiinaa salaan hambalyo iyo sidoo kale bogaadin dhammaan dowlad goboleedyada ka timaadeen iyo madaxweynayaasha iyo gaar ahaan waxaad hambalyo iga gaarsiisaan madaxweyne Axmed Madoobe oo nasiib u yeeshay sanadka inuu koobka ku guuleysto. waxaan leeyahay hambalyo gabagabadii kooxdii koobka tartanka kubadda cagta ku guuleysatay ee Jubbaland ayaa lagu sii sagootiyay dhaantooyin kala duwan. Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho. daawadayaalka warkaasi aad ka daawanaysaan waa xarunta uu TV-ga Honkabel ku leeyahay magaalada Nairobi. wararka kale ee soo gaarayna waxa kamid ah magaalada Hargeysa waxaa dhawaan kulan qadaha isugu yimid wasiiradii hore ee madaxweynaha hore Soomaaliland Axmed Maxamed Silaayo. kulankan oo kadib falanqeyn badan laga dhiibtay isla markaana ay badatay hadalhayntiisa ayaa wasiirkii hore xanaanada xoolaha Cabdulaahi Maxamed Daaruc Kuse oo aan weydiinay bal waxa ay daarnayd qadadaas iyo tunada ka dhashay waxa uu ku jawaabay waan maqlayay niman waaweyn oo inta soo fariistay ka jawaabay qadadii oo waliba tafsiir khaldansi tafsiir aan aad u la yaabay xitaa siday madaxooda ugu soo dhacday aan aad u la yaabay qadadan waxba kama duwanay qadooyinka hudheel baa lagu iibinayay hudheel baanu ka iibsanay waanu cunno wax weyn oo mushkiladahooda yaallay ma jirin dad iscasumayna waa nahay golii wasiiradana maanaan ahayn waxaanu ahay niman shicba waxaanu ahaan jirnay xubnihii xukuumadda madaxweyne Axmed Silaayo xukuumaddana qura kama naashaqeyna xukuumado kale oo ka horreeyayna waan ka soo shaqayn jirnay madaxweynaha waxaan doonayaa inaan si fudud markaan uga jawaabo madaxweyne Axmed Silaayo maalintii kulankiisii u dambeysay uu qabtay golihiisii wasiirada wuxuu noo sheegay waqtigii inuu dhammaado annaguna waxaanu ku qanacsanayn inuu waqtigii dhammaado waxaanu ku qanacsanayn inuu madaxweynaha iyagaasina aanu guul ku gabagabaynay waqtigiisii oo uu legasigiisii dhammaystirmay madaxweynaha cusubna aanu annagu ka mid nahay dadka soo saaray annagoo keliya maaha ka mid nahay waanu ku faraxsannahay waxaa kaloonu ku faraxsannahay ninkii madmadow kaga jiraba inaan u sheego xubnaha golaha wasiirada ee uu magacaabayna waanu ku faraxsannahay oo qof baa bedelay horta kolley ka anigay bedelay anaaba dhisay Yuusuf Yareen anaa dhisay waxaan leeyahay mushkilad weyn maaha xasan gaafadhiyo wasaaradda xanaanada xoolaha ay bedelayna saaxiibkii wey wax alla wax cuqdado meeshaa ku dhex jirtaa ma jirto ninka yidhi laba madaxweynaha jirana istaaqfirullah dheh baynu odhanaa waa saaxiibkaygii gaboobay waan ka xumahay inuu mala noocaasi kusoo dhalo Axmed Silaayena ma qabato Axmed Silaaye muuse isagaa dhalay isagaa sameeyey isagaa madaxweynenimadiisan aabbo ahaa imikana u ah annaguna imika annagaa madaxweynahayagii 10 cishu joogay hadalka ka daaya niman iska qadeeyay oo meel iska fadhiyeen waan idiin sheegayaa qadadaa ninkii shaki ka galay oo waxaal qaado waxba kama jiro
waa niman isu yimiun wax alla wax laysku ogaana ma jirto madaxweynihii hore ayaa booqashadii la booqday darteed wuxuu casuumay intii markaa kulanka ka soo qayb gashay ma aha shir ma aha mid ajadale ma aha wax laga wada hadlayo mid ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga kulmiye warbaahinta la hadlay ayaa kulankaasi ku tilmaamay inuu ekaa mid khilaaf lagaga dhalanayo xisbiga kulmiye waxaana cabdulaahi cukuse oo aan weydiinay bal arintaasi waxa ka jira uu ka yiri wallahi waan maqlayso wala anigu waxaan uriyaa urtaas ma doorkan urtiisu khalad bay urisay waxa hadii hore ur wanaagsanaa jiray doorkan wuxuu uriyay meel cidlaab uriyay maxaa ka jira in xukuumadii uu ka tirsanaa ay ku dhaqaaqday musuqmaasuq oo aan weydiinana waxa uu kaga jawaabay wallahi tawan ka xumay aad iyo aad baan uga xumahay waliba ereyga maalin dhaweyd baan isticmaalo khibrad la'aan baa u geenaysa markaan idhi waxa loo qaatay inaan u jeedo xubnaha wasiirada cusub maaha waxaan u jeedaa kan yara odhidka sheegtay ee kusimaa iyo ciyaalkan maalin walba tv-ga fadhiya dowladnimada ku ciyaaraya ma aha qaar muuse magacaabay waa qaar xukuumaddeedii iyo dowladdeedii ka mid ah kuwan aan leeyahay way khaldan yihiin waa kusime tv-ga intuu fadhiisanayo maalin walba shirkado uga yeedhayo shirkadu waa 20 qof soo warqaday inuu qoro ma soo inuu xafiisyada weydiiyo ma xafiisyada sidoo ku jiraan mid labaadna waaba jirtaayo markii aanu xilka wareejinaynay wax alla waxay wasaaraduhu heshiis galeen waaba wareejinayba madaxweynaha lagu wareejiyo madaxtooyada la keenay koobina wasiirka cusub baa la siinayaa in xilka tirsaday wasiir marka xilkiisa ayaan maba jiraba marka maalin walba sabab tv-ga loo fadhiyo dowladii dhammayd ee halka dalka soo gaarsiisay in musuqmaasuq lagu sheego والله وكحمة أدبا وحمة عبد الله محمد دار عكوسي وأساسها ورقيس كصحن صحو سيدو كلنا وحا وكمد هانجري صحفيين تسومال للمرأة ويديني بل إن هدي وحلكي قرن كوو هدي ودقاي إن وربين تدي بقصوا الله بنايو وحا وكاقا جوابي ما يمكن أنيقو قديي بابا خاتي تشوكسدي أنو صحافة صوفر استرى بابا يسيح مانيسا أنو صحافة دمو فريسترى ميل لما تيجي وانا سنة واحد دوني هنا اسكن نستو إنا محبرتو inaan iska shaqaysto shaqooyinkayga private-ka iska galo waa charisna aanu helo danahayga shakhsiga najxadan cunaye hoon cable tv hargeysa golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta su'aal weydiiyay hanti dhowrka guud ee qaranka Somaliland kaasi oo hor keenay xisaab xilkii sanadkii 2016 warbixin amuurtaas ku saabsan waxa noo soo diray wariye najxadan cunaye gabi ahaanba bahda garsoorka ee gobolka Awdal ayaa u dhanaa markii dabka la sudhay maandooriyahan qabriga ee dadkii lagu soo qabtayna xukunka lagu riday waxaana ugu horeyntii xeer ilaaliyaha gobolka Awdal mudane Cabdi Haybe oo ka warbixinaya tirada khamrigaasi u dhanaa inta uu dhan yahay xukunka lagu riday ee sanayaashii lagu soo qabtay iyo meesha halista ku haysa gobolka Awdal ee uu khamrigaasi ka soo galo uu yidhi khamrigan wuxuu dhamaa 63 caagudood waxa lagu soo qabtay 2 eedeysane mid walba waxa lagu xukumay 4 sano xadhig ayaa lagu xukumay iibna male cafisna male meesha la ilaa gorya cawl xuduudka marka taagan tahay xadhigaagtiisa lagu iibiyaa xadhigaagtiisa ayaa lagu iibiyaa oo ah cagti ugu horeysay ee la soo saarayay Somaliland marka la imanayo sidaasi oo kale ayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal mudane Cabdiraxmaan Geedi Barre uu isaguna digniin u diray gaadiidleyda isaga gooshta goraya cawliya magaalada Boorama waxa cidi soo saartay warbahayo waxaan alaabaan moodayay gaadhiga la soo duldhigay qofku inuu iska baadho oo waxa la duldhigayo iyo waxa laga tagayo inuu aad uga foojignaa iska ilaaliyo waayo waxaas qofkii lagu qabtay baa gacantiisa lagu qabtay kaasa marag ku noqonayo marag madoowi taas lagu xidhayaa gaadiidkana laga xanibaya waa la galaaha gaadiidka markay sii socotay joogsan weydo waa la wareegay gaadhiga wax lagu qoray dawladda in la wareejo gaadiidkana lagu qoro dhankiisa ayaa isaguna gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Awdal mudane Sheekh Maxamed Saciid Saaweer ayaa si fiican u iftiimiyay mushkiladaha bulsho iyo kuwa caqiido ee maandooriyaha khamrigu sababo waxana isagoo dadka fariin u diraya uu yidhi marka maanta gubaynaa wad arkaysaan umadeena waxaan u sheegaynaa muxuu ahaa inay iska ilaaliyaan muxuu ahaa dhibaatadaas baalkaas dhibaato badan buu keenayaa dhalinyarteena ku baaba'aysa bulshada baabi'iya ku baaba'aysa waa wax qariban oo caqliga baabiinaya oo muxuu ahaa khatar ah ونوع الدرايجين لرا إثيوبيا محوها كسوق شيء وأنا أم الخبائث ذنبي يدور دم محوها يدا هو يوقع
waa wax bulshadeenna muxuu ahaa baabiinaya waa wax muxuu ahaa ilaahay xaaraantinimeeyey si kastaba ha ahaatee tiradan khamriga ah ee ay soo bandhigeen bahda garsoorka ee gobolka awdal ayaa aada uga yara xadigii laga filayo inay gacanta ku soo dhigaan goob fagaara ahna ku gubaan marka la barbar dhigo sida khatarta maandooriyaha si ay u soo kulaalayso gobolka awdal. cabdalla cali yuusuf, Hon Cable TV, Boorama. daawadayaalka warkaasi aad ka daawanaysaan waa xarunta uu TV-ga Hon Cable ku leeyahay magaalada Nairobi. wararka kale ee soo gaarayna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ay ugu horeeyaan gudoomiyaha degmada iyo gobolka iyo qaar ka mid ah isimada Jubbaland ayaa waxa ay taageereen Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Sheekh Xasan Wacdi oo lagu doortay gobolka Doolo gaar ahaan degmada Wardheer waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin doorashadii uu ku soo baxay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed. waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay inuu xilkiisa u fududeeyo suldaanka waxaan maana kulli dawaanin kafax soo ahaayo iyadu hadda dhibi mayso farsamada waa kuma cusba annagana Ilaahay inuu fududeeyo ugu ducaynaynaa dhammaan intiina ka soo qayb gashayna waa mahadsantiin. waxaan ugu hambalyeeynayaa suldaanku inuu noqdo hogaamiyaha ugu fiican oo suldaamada lagu khayr iyo guul baan u rajaynayaa. si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa sida ugu fiican oo walaalnimo ah oo macaan badan baan u soo dhaweynaynaa. maamulka aabihii uu ka dhaxlay kii baan rabnaa inuu ku maamulo kii baan rabnaa Allah u sahlo dadkiisana la taageero muslim Allah aga dhigo muslimka Ilaahayna kii isu keeno Soomaali kii isu keeno Allah ka dhigo. eeda waxaan ku leeyahay suldaanka loo riyaaqo noqo suldaan qaran noqo suldaan toleed noqo suldaan caadil sidii aabahayo kala noqo hambalyo haddaan nahay reer Jubbaland. suldaankana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu xilkiisa u fududeeyo kitaabkii aabihii ku dhaqmi jirayna uu ku dhaqmo. waana suldaan Soomaaliyeed waa suldaan kablala waa suldaan daaro waa suldaanka beesha giri Ilaahay xilkiisa ha u fududeeyo. waxaan taageeraynaa suldaan Cabdullaahi suldaan Maxamed suldaan maaragtay Sheekh Xasan Wacdi baan taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baanu soo dhaweynaynaa si buuxdaanu u taageeray. waxaa tahay maanta laga bilaabo suldaan Soomaaliyeed dhammaan beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka degan ama Soomaaliya deganba waxaad u tahay suldaan. guul baan ku rajaynayaa. Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane, Hon Cable TV, magaalada Kismaayo. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay siyaasadda qaran ee lagu hogayo ciyaaraha Soomaaliya. sida warbixinta warkaasi uu magaalada Muqdisho nooga soo diray waliye Axmed Yusuf Suleymaan. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa daahfurtay siyaasadda qaran ee ciyaaraha Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay bahda ciyaaraha dalka xiriirka kubadda cagta wasaaradaha maamul goboleedyada dalka iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye. waa kuwan qaar ka mid ah bahda ciyaaraha iyo mas'uuliyiinta ka qayb galay kulanka oo ka hadlay goobta oo mahad celiyay sida ay iskugu howshay wasaaradda dhalinyarada inay sameyso siyaasadda qaran. marka ugu horeysa mudane wasiir Marwo Khadiija Maxamed Diiriye wasiir ku-xigeenka waxaan aad idinkaga mahad celinayaa wanaagga iyo Soomaalinimada iyo intii aad joogtay isbedelka Soomaalinimo ee muuqday daaweynta bulshadii wax badan kala qoqobnayd isu keenideeda raadintii aasaaskii dhaxalkii horumarkii nabadii isboortiga oo aad halyeeyadii qaranka ee la hilmaamay dib u soo noolaysay. marka wixii ina soo dhaafay waxay noo noqonaysaa taariikh waayo muddadii u dhaxaysay mataqaana maxay ahayd 69kii ilaa iyo mataqaana maxay ahayd 86kii waxaan qabaa waxay ahayd Soomaaliya meelaha ugu qiimaha badan leh ayay kaga jirtay mataqaana maxay ahayd Afrika iyo dawladaha carabtaba caalamkana mataqaana maxay ahayd waxaanu ka gaadhaynay meel aynu kala tartami karno. taasna waxay ku timid waxa weeyaan ahmiyadda la siiyay dawladdii kacaanka ee waqtigaa jirtay wax walba way ka hormarisay inay mataqaana maxay ahayd ay xoog saarto mataqaana maxay ahayd isboortiga ilaa isboortigu gaaray in heer degmo iyo heer gobol iyo heer mataqaana maxay ahayd naadi oo saddexda levelba leh. intaas kadib wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo ka hadashay munaasabadda ayaa u mahad celisay bahda ciyaaraha dalka. maanta waxaa bilow ah siyaasadii qaran ee isboortiga Soomaaliyeed in la bilaabo
taasoo wasaaradda ay u wakiilatay qabiilada isboortiga ee dalka gudihiisa ku noolaa muddada dheer ee burburka dalka soo gaaray ee dowlad la-aanta iyo xilliyadii ku-meelgaarka ahaa iyo qabiilada kale ee odayaasha ayagana qurbaha ku noolaa oo haddaba ku sugan. dhammaantood wasaaradda waxay ka codsatay in ay aqoontaas dheer ay ka kaashato si loo dejiyo siyaasadda dhalinyarada siyaasadda isboortiga Soomaaliyeed. gabagabadii munaasabadda Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha Soomaaliya ayaa guddoonsiisay bahda saxaafadda shahaado sharaf taas ay ku mutaysteen ka shaqayntii koobkii soo idlaaday ee maamul goboleedyada dalka waxaana ka mid ahaa shahaadooyinka la siiyey TV-ga Home Cable xafiiskiisa magaalada Muqdisho. Axmed Suleymaan, Home Cable TV, magaalada Muqdisho. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii galabnimo oo idinkaga imanaya xarunta TV-ga Home Cable uu ku leeyahay magaalada Nairobi. dhammaan waa mahadcelinayaa intii warkaygala qayb qaadatay waxaana warka idinla socodsiinayay anigoo Afaad Mutaxadir Yuusuf tan iyo war kale intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiino. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اتخذوا waxay ka dhigteen axbaarahum suufiyaashoodii nimankii ahlu kitaabka yahuudiya nasaaradu axbaartoodii waxay ka dhigteen axbaartu waa wadaadadii yahuuda iyo waruhbaanahum suufiyaashoodii suufiyaashaasina waa kuwii kristanka arbaaban ilaahayaal bay ka dhigteen min duun illaah inta alla ka sokaysa ilaahayaal bay ka dhigteen wadaadadoodii والمسيح ابن مريم عيسيهنا مريم أهانا ربي باي كدكتين وكوين وين إلهي أيان درهدا أي إذا درهدا سكتمين ألا وحد وما أمروا لما فرين إلا ليعبدون عابدان إلها واحدا إله كلين عابدان بالله فرأيه يا إلي رجي الدمريو ملائكة مخلوق له صح حاضريو إلهي كصفا وإلهي كلام الدجا يا إلي يا أقلاري إله كلين بالله إسكوا جاير رسوسا لو صادر إن لعابدين دتك وشيئا لا إله إلا هو إله حق لقو عابد الله وإسقون سبحانه إسقى كهفنا أنو دوين وكنا سهن عما يشركون وحي إله إلا وذاتيين إلهي وكدر ركسين هذا وعيد وحبا ما يرنكر أنا أغنى شركائي عن الشرك حديثك الصحيح صحيحة حديث القدس قال إلهي وحكور عيد وحلا وذاتي أنا أغني سنو أنا يعيد كلهدي وحنا لوذاتي وأنا قد تقام عدي بن حاتم الطائي نينك اللي ورين جري ee uu dhalay deeqsinimada ninkii caanka ku ahaa geela badan qali jiray ee Xaatim الطائي la oran jiray عدي بن حاتم hada kristan ku galay arabti kristan oo daybu kamid ahaa waqtiga rasuulku sallallahu alayhi wasallam aayadan uu nabigu akhriyay wuxuu yiri hada nimanka aniga u xogaalaho wadaadada ma caabudana waa sidee oo de suufiyaashooda iyo wadaadada iyagoo dul fadhiyo oo sida sanamka u caabudaya maan arag yastafsiru rasuula min al-aaya nabiga aayadu weydiinaya arin cajiiba buu nabigu u sheegay xadiidku waa sugan yahay wuxuu ku yiri wadaadadu kuwooda wadaadada kaniisada iyo sawmacada iyo waxaas sawxuma xalaal wixii ilaahay uu ka xaaraantinimeeyay dadka sawma xalaaleeyaan wax xalaalana saw kama xaaraantinimeeyaan markaasuu yiri ha way dhacdaa taas فذلك عبادتهم إياه هدبا عبادة أي عابدين واتاسب النبي عليه الصلاة والسلام أرين تاسو كتل ماميو حقا لا هذا حق التشريع أما حق التحليل والتحريم إن وحنا الحلالية وحنا الحرام تنمية إلهي بأسكله هديد دتك قاركول حقا أي قاتان يسو تاجاه وإرادان أنك حلالينينا كان وحنا حرام تنمينا نصوص يدون لو تشوشينين با تبرتاسون بيجليه يجلف تقولون بربيال يرير isu dhigayoo dadkii soo hor farfariistay marka cidda tidaa sharci baanu qoraynaa ama maamul ha ahaadeen ama golayaal ha ahaadeen ama madax dhaqameed ha ahaado ama wadaad ha ahaadee qofka ilaada waxbaan qorayaa cid baan qaanuun iyo nidaam u dajinayaa bal wixiisu ha eego waxiga halka uu ka taagan waxiga bi waafaqsan yahay mise uu khilaafsan yahay waa mulaaxada aad u muhiim oo nabigu fasiray calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu yuriiduuna waxay doonayaan an yudfi'u nuur allah
ilaahay iftiinkiisa inay ku baktiyaan biafwaahihim afafkooda dee nuurka ilaahay waa kaa soo baxay ee islaamka ah ee gudcurka gaalnimada kala kaxaynaya ee dadka qalbigooda nuuraya dhaqankooda nuuraya adduunyadooda iyo aakhiradoodaba nuuraya wayaaba allah ilaahayna wuxuu diidayaa ilaa an yutima nuura nuurkiisa inuu dhammaystiro mooyaane waa diiday walow kariha alkaafiruun gaaladu haba naceen gaalma ogolo nuur soo baxa ilaa isagii baa madoowe nuur iftiimiye ma doonaya adduunyada madowgiisaa la arkayaae kaasi haba nace anigu u joojin maaya baa ilaahay wy biafwaahihim dee iftiin aad u baxaya balka afuufaya intuu ag fadhiistay isagunbuu afku daalaya ilaahay wuxuu inoogu bushaareeyey diintiisu inay soconayso ku ka hadhay iyo ku hirgeliyo hareerta qabtada huwa ilaahay aladii ilaahay weeye arsala rasuulahu bilhudaa rasuulkiisiyo nebi maxameda hanuun buu ku soo diray nebigu iskama iman baadilna lama imana hanuun buu la yimi wa diini lxaq diintii xaqa ahaydna waa la yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam diin kaleo xaqii ma jirto diimo badan baa adduunyada ka jira ta xaqa ilaahay ogolya waata muxuu ilaahay u keenay diintan liyudhirahu si uga sarraysiiye cala diini kulli cala aladyaani kulliha diimaha kaloo dhan mid bari iyo mid galbeed iyo jooyinka waxalla waxa dhaqamada kale kanuu ilaahay ogolya inuu ka sarreeyo ma ogolo ilaahay kiis diintiisan islaamku inay hoosayso oo kuwa kale ay sarreeyaan ilaahay ma ogola walow kariha lmushrikuun mushrikiintu haba naceen kaafir iyo mushrik dee ma ogolaanayo islaam iyo ehelkiibaa sarraynaya iyo diin baa sarraynaysa ma ogolaanayo luqaduu ku hadlaba iyo dhanuu kaga soo wareegay iyo khad uu dejiyaba isagu sidee islaam hoosta loo dhigayaa wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow ilaahay wuxuu siinayaa dadka digniin aqoontoodu ilaahay dhisayaa macluumaad aan ahayn buu ku kordhinaya warka laabta laga qaadanaya qiimaha badanina waa ka ilaahay ka soo yeedhay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo ina kaiira in badanoo min alaxbaari waruhbaan axbaarta wadaadadii reer banu israa'iil iyo ruhbaanta suufiyaashii kiristanka in badanoo ka mid ihi la ya'kuluuna waxay cunayaan amwaala annaasi bilbaatil dadka xoolahooda xaqdarra ku cunayaan ama waxay diinta iibsanayaan annagaa kaa fududayn doona intan iska dhiib ama rishwada baashii la odhan jiray iyo laaluufshii bay rujisanayaan ama ribadii bay xalaalaynayaan qiilal kala duwan oo faasida oo badan ayay khaanado dadka uga soo guraan waxbaba niman ay xidhaan ma aha oo wax ka joogsanayaan bilbaadili gardaray ku cunaan wayasuduuna dadka waxay u diidayaan can sabiili illaah jidka xaqaa bay dadka ka duwayaan dadkii xaqa ku toosnaana dagaal bay kula jiraan dagaalka casrigaa waxa wada nimanka mustashriqiinta la idhaahdo ee aada aqoonta shareecadda u barta diinta aada u bartay tafsiir iyo xadiid iyo fiqiba dabeetana kutubaba qorayaba kitaabkaa dhan intaasoo mujallada uu qoray 20 meeloodunbuu ku yaro qalloocinayaa dadka war ninka kitaabkiisu wanaagsanaada sida loo hayo loo akhriyayo ayaa 20 meelood ee waswaaska ah ee suntii ibliiska la liqaya idan markaa qofku waa in thaqaafadiisu ay kobocdaa uu yaqaanaa mustashriqa oo maxaa tahay halkuu ka soo jeedaa erayguna aanu ninkii bariyaystay u maqale barbarigan uu ka yimi iyo waxaan uu waday ninkan muxuu yahay inaad wax ka barataa muhiima thaqaafa islaamiya والذين يكنزون الذهب بولهير كوي كيدسني الذهب والفضة هي العقد ولا ينفقونها في سبيل الله يعني كب حينين جهاد فبشرهم بعذاب أليم على كل لجوب بشاره مركا كوا كيدسني العقد عذر كان من كاساق هذا ذهب كأي العقد إله لعاب ذابي وأركان أو واحد كنوا لينا كل انتهى مركز يجوي كيدسن شرين aayaddu si caamana way u hadlaysaa ciidda dahab iyo lacag kaysatay aan ku bixinin fi sabiilillah oo fi sabiilillah dawaa jihaadkii waa noqonaya meelo badan baana fi sabiilillah noqon karta oo sakadii oo kale fi sabiilillah bay lahayd marka wixii waajiba ee farala ee laga bixin lahaa xoolaha ama dahabkii lacagta qofka bixin waaye iska kaydsada waciidkan iyo hanjabaadani ay ku soo arooraysaa sida jihaadkii oo kale sida ummadda islaamka badbaadintii lagu badbaadinayo kuwooda gaajada u dhimanaya ama cadowgu dilayo sida sakadii masaariiftii ehelka ee kugu waajibtay faralka ahayd meelahaas oo dhan ee faralka ah qofka ka gaabiya abaalkan uu leeyahay yawma maalin baa lagu cadaabi doonaa oo cadaab kulul uu leeyahay qofkii baanka iskaga xidhay wixiisa waxba ka bixin waayay wixii ilaahay uu dhiibo wakiilka uga dhigay ayuu iska qufushay isagu faralkiibuu ka bixin waayay يوم يحمى عليها يوم مال بال عذاب الدنيا يحمى عليها والله صاكل لينيا سيدو النبي فسر عليه الصلاه والسلام يدو ذهب كنيو
iyo lacagtan laga dhigay dhururi cadcadoo tii balballaadhnayd ayaa waxaa laga dhigayaa madane madanaha xoolaha lagu suntee ballaaran waa loo soo ballaariyay baas yuxmaa calayha naarta fii naari jahannama yuxmaa waxaa lagu soo kululaynaya calayhaa dahabkii lacagtii fii naari jahannama baa lagu soo kululaynaya sidaa bahalkan kaamaanka oo kale kaamaankan gaadhiga sidiisaasoo kale iyadoo u cad oo dabka la soo geliyey ayaa la soo kululaynaya fatukwa biha waxaa lagu gubayaa jibaahuhum xaggooda soo jeedka iyo wa junuubuhum dhinacyadooda iyo wa duhuuruhum dhabarkooda xaggee fayowdee xaggii hore way bislaatay hareerihiina way murxadeen xaggii dambena ka daran intaba saasaa loogu dhajinaya isagoo og waxani wixii uu kaydsanayn alla wuxuu leeyahay haadaa waxani maa kanastum lianfusikum oo wixii aad naftiinna u kaydsanayseene faduuquu dhadhamiya maa kuntum taknizuun wixii aad kaydsanayseena maa lahaa halkaasuu marayoo wixii markaa adugu aad gacanta ku hayso wixii waajibkaagaa iska ilaali sunnahana ka gudo laguma laha wada bixiya bersent nisba da'iila nisba yar oo dee boqolkiiba 2 bara boqolkiiba 5 haddaad qorshayso waad ka badbaadi doontaa balaayadan laakiin inuu qofku wixiisii xidho faral iyo sunnaba uu diido uu dhaa anuun baale taasaa uu ku naar mudanaya taa ilaahay markuu saxay arrin kale oo dadka ku qaloocsantay oo taariikhda iyo tirada waqtiga ayaa ilaahay u saxaya ila islaamku waa diin suuban oo dadka